السلام عليكم dhammaan asxaabteeda qaariga kuwii hore ila joogay iyo kuwii dib iga soo biiri doona halkan waxaan idinku hayaa maanta muuqaal ku saabsan qaabka loo jabsado Facebook macluumaad kooban ayaan idinka siin doonaa Facebook iyo sida looga hortago in Facebookaada laga jabsado asxaabteeda ayaa waxay soo weydiiyeen su'aalo ku saabsan sida Facebook loo jabsado iyo sida Facebookooda la jabsaday loo soo celiyo maanta halkan waxaan ku bari doonaa qaabkaas loo jabsado Facebook iyo sida looga hortago usoo dhawaada dhammaantiin muuqaalkayga ugu horreyn aan idin faahfaahiyo website-yada fake ah ee ku saabsan sida loo jabsado Facebook waxaa jira fake websites kuwaas oo ku dhahaya sidaan u jabsado Facebook laakiin aysan waxba ka jirin sida kan oo kale kan wuxuu ku leeyahay hack Facebook ayaa ku qoran haddii aad halkan gelisid macluumaadka qofka uu ku leeyahay ka jabso Facebookiisa wuxuu kuu soo saari doonaa processyo dhammaantood fake ah wuxuuna xadayaa adiga macluumaadkaada ee adiga wax ma jabsanaysid waxay ku leeyihiin waxa lagu aqoonsadaa dejiso applicationo waxyaalo kale processyo noocan ayuu ku saarayaa marka aad gashid dhammaantoodna waa wax kama jiraan waqtiga ayuu kaa dhuminayaa wax natiijana kama gaaraysid kumana jabsan kartid Facebook okay taas oo isla fahnay su'aasha ayaa waxay tahay haddaba Facebook ma la jabsan karaa seesa loo jabsan karaa haddii Facebook la jabsanaa jawaabtu waxa waaye waa maya ma jabsan kartid Facebook ilaa aad ka noqotid hackerka saxda ah ee abuuri kara code-ka ama software-ka kuwaas oo kaliya ayaa today Facebook hacker ku samayn kara haddaba qaab kale ayaa jira Facebook oo indirect ah wax loogu jabsado waxaan idin faahfaahin doonaa qaabka indirectiga ah ee Facebook loogu jabsado anoo ku sababeyn doonaa 5 qodob oo kaliya 5taas qodob aan idin faahfaahin doono ayaana lagu jabsan karaa oo kaliya Facebook waa qofka aan ahayn hackerka saxda ah laakiin hackerka saxda ah waxa uu awoodaa si direct inuu akoonkaada u jabsado kamana celin kartid wax controlna kuma sameyn kartid laakiin dacwo badan iyo kadib wareeg badan Facebook kuu soo celin kara aan idinkugu bilaabo isla markaana aan idinkugu horeysiiyo waxa jira hacking kaas oo loo yaqaan stealing password dadka password-yaasha xadaan haddaba password-ka qof kale laga xaday ma dhihi karno qofkaas hacking waa ama waxbuu jabsaday sababtoo ah password-ka haddaan xado taas micnaheeda ma ahan waxbuu jabsaday qofkaas okay haddaba yaa ah hackerka saxda ah aan idin sheego dadka waxaa ku jira hal qof oo genius ah kaas oo jabsan kara Facebook qofkaas markasta oo isku dayo in uu jabiyo Facebook shirkadda Facebook way ka warheshaa isla markaasna waxa ay ku bixisaa balaayiin lacag ama lacagaad u tiro badan si ay qofkaas ku ogaato macluumaadkiisa iyo xogtiisa iyo sida uu jabsaday Facebook kadib markay soo hesho waxa ay ka barataa tikniiga iyo qaabka oo maray qaabkaasna waxa ku samaysaa protect way tirtirtaa gabi ahaanba waxay kula jirtaa dagaal adag hackerska haddaba iska ilow inaad jabsatid Facebook si direct ah haddii aadan u aqoon cilmiga lagu jabsado ama sida loo sameeyo software-adi ku gaar ah iyo code aad ku hacking garaysid Facebook password waxaan idin sheegayaa 5 qaybood aan hore idinkugu soo tilmaamay kuwaas oo loo yaqaan stealing password method password-ka qofka ayaad xadaysaa 5tan qayb adoo midkood raacaysid markaas kadib ay ku salaanaysaa qof kale Facebook in aad jabsatid ama aad gashid taas micnaheedana ma ahan inaad Facebookaas jabsato laakiin waxaad xaday password-ka qofkaas oo si caqliyaysan u qaadanaysid 5taas qaybood ayaa idin kala sharaxayaa si faahfaahsan waa kan koobaad keylogger social engineering spy app and password guessing okay phishing phishing waxaad samaynaysaa duplicate Facebook ayaa wax ka dhex samaynaysaa server websiteska kadib waxaad helaysaa linkaasna waxaad u diraysaa qofka aragta Facebookiisa inaad jabsatid markuu macluumaadkiisa geliyana waxa u soo baxaysa naqshad noocan oo kale ah wuxuu helayaa error waxa uma shaqeynaya laakiin adiga waxaad helaysaa qofkaas Facebook password-kiisa ayaad xadaysaa kadibna waxaad sidaas ku login garanaysaa Facebookiisa okay haddaba sida loo sameeyaa phishing website waxaad gelaysaa Google kadibna waxaad qoraysaa phishing script kadib waxaad la soo degaysaa waxa ku soo dejinaysaa server website kadib waxaad helaysaa linkaasna waxaad u diraysaa qofka aragta Facebookiisa inaad jabsatid ama aad password-kiisa xadid
qofkaas marka uu Facebook isku login garay halkaasna waxaad heli doontaa passwordkiisa taas muuqaal kale ayaa ka samayn doona okay hadda sidee looga hortagaa dadka Facebook noocaas adeegsanaya ama linkigaas haysta okay haddii lagu leeyahay meel ku login garay haddii lagu dhaho Facebookaaga ama Facebook halkaan geli website ku dhahay directed waa inuu hubisaa in uu yahay facebook.com meel aan facebook.com ku qornayn ha gelin waa inuu website sida uu yahay haddii aad gelisid Facebookaaga laga dhaco adiga ayaa isku kaliftay hadda qaabkaas waa qaabka looga hortago adiga gacantaada inaad ku gelisid maahan qofku asagu ma jabsan karo sababtoo ah inaad Facebook ku login gelisid meesha ayaa ka horeysa qofku inuu qaato Facebookaaga kan labaad waa keylogger okay keylogger hadda waa maxay keylogger waa software ama application kaas oo qofka hackerka ku soo dejinayo computerkaada ama telefonkaada adigoo aan ogeyn kadib halkaas waxa uu ka ogaan doonaa qofkaas ama uu u sahlayaa keyloggerka in uu helo qofkaas macluumaadkaada sida Facebook passwordkaaga iyo macluumaadka kale ee uu ka raadinayo oo dhan waxaan u sheegi doonaa keyloggerka sida loo sameeyo muuqaal kale ayaan ka samayn doonaa asna okay balse hadda aan kuu sheego sida looga hortago keyloggerka oo isaga badbaadiyo markasta oo soo kicinaysid access device-kaada ama computerka ama telefonka aad isticmaalaysid haddii aad shaki qabto qofkaas in uu keyloggerka u isticmaalay ama aad security-gaaga ilaalinaysid waxaad ka dhex baaraysaa applicationada ama software kugu jira computerka unknown software app aadan garanayn oo aadan adi soo dejin kadib waad dileedaysaa waxaad kaloo ka raadinaysaa meelaha installka wax kusoo dejisid oo applicationada ay ku galaan software sidoo kale marka aad qoraysid Facebook passwordkaada oo kale waxaad isticmaalaysaa keyboard screen keyboard waxaa loo yaqaanaa isticmaalaysa kaas Google-ka aad ka soo degsanaysid kadib ma arki karo qofkaas okay social engineering hadda waa maxay kaasna waa kan saddexaad ayuu noqonayaa ee Facebook password lagu xado okay social engineering guessing password okay guessing password macnaheedu waxa waaye qofka inuu passwordkaada qiyaaso qofku yaqaan oo kale passwordkaaga haddii uu fudud yahay wuu qiyaasi karaa okay lacala haddii aad Facebookaaada passwordkiisa aad ka dhigtay nicknamekaada oo kale inaasada qof walba yaqaana ama phone numberkaada ama waxaa ka dhigtay phrases common phrase waxyaala oo caan oo kale ah ayaad ka dhigtay eeyaal caan oo kale lagu garanaya oo lagu qiyaasi karo ama lagu yaqaan adiga mar walba adeegsid oo kale okay haddaba weligaa easy password samaysan wax lagu yaqaan oo kale kaasoo qof kale u sahlaysan uu qiyaaso sida phone numberkaada iyo magacaaga iyo wax la mid ah intaba ka adeegsan kaasna qofka hadduu qiyaaso Facebookaaada saas ayuu ku jabsanayaa oo taasi waa mid ugu simbalsan qofka qiyaasi karta Facebookiisa passwordkiisa inaad qiyaasta ayaad ka jabsanaysaa haddaba haddii saas lagaga jabsado sidee ayaad ku soo celin kartaa Facebook passwordkaada password recovery waxa la yiraahdaa ayaa jira waxaad ku qoraysaa website-ka ama Google Chrome-ka ayaa waxaad ku qoraysaa waxa la yaqaan facebook.com/user like this sidaan oo kale username markaad ku qortid kadib qofka noocan ku soo baxaysa kadib halkaas waxaad gelinaysaa email-kaada ama phone number-kaada Facebook-gaaga ku samaysnaa haddii uu ku shaqeeyo waa okay kadib waa sii samaynaysaa passwordkaaga ayaa bedeli doontaa asaas ku soo celin kartaa Facebook recovery ama haddii passwordkii la bedelay Facebookii la bedelay wax kasta la bedelay waxaad jirta dadka nasiib kale marka qaar ay helaan option kale kan oo ID-gaaga aad gelinaysid aakhirka marka halkan waxaad samaynaysaa ID ayaad gashanaysaa ID-gaas oo magacaaga iyo sida Facebook-gaaga u samaysnaa sida kan oo kale Facebook fake waad samaysan kartaa haddaa horey u lahayd mid Facebookgaada iyo iswaafaqsan yihiin ood gelin kartaa dadka badanaa waxay ku khaldamaan passportkooda oo horey u lahaayeen iyo Facebookgooda oo kala duwan ayay kala gelinayaan kadibna looma ogolaanahay Facebookguna kuma aqoonsanayo laakiin marka aad profilka Facebookgaada ID la mid ah aad haysatid oo symbol isla markaas waxaad helaysaa Facebook recovery waa finalka meesha ugu dambaysa waa haddii qofku wax walba uu bedelo halka weyd ku soo celin kartaa qaybta ugu dambaysa waxa la yiraahdaa spy app كان هو application وشبنا هاي التليفون كذا شرط واحد قف كان إنه كل شيء قف كان مقن كم سمين كرتي قف كان إنه كل شيء التليفون كيسو أنا هسا وأنا كوش بتاع application هذا spy app كله يقع قاس أو كل سود دقيسيد جوجل كا بعدين فاهم أنت أنا قاس مقال كله
haddaba si u shaqeysa applicationkan taleefankaada markii lagu shubo wuxuu awood u leeyahay qofkaas ku shubta taleefankaada in uu helo macluumaad kasta oo ku saabsan taleefankaada lamid maahan kii loogarkii aan kasoo hadalnay xadaayay passwordka oo keliya balse kan wuxuu xadi karaa sawiraantaada muuqaaladaada telephone numberskaada wuxuu xadi karaa ama qofkaas ogaan karaa dhammaan informationkaada iyo waxaad kula hadashay dadka kale halka aad joogtid telephone kameradaada everything ayuu ka qaadi karaa aad ayuu halis badan yahay mar walba waa inaad la socotaa taleefankaada haddaba si looga hortagaa in lagu sameeyo spy app marka koowaad ha ogolaan taleefankaada qof inuu isticmaalo adigoon ogeyn kadib remove spy app haddii aad ku aragtid taleefankaada mar walba applicationada kugu jiraan ogaataa haddaba see ku baari karaa sintka ayaad gelaysaa kadibna waxaad ku qoranaysaa qaybta quudin system surface ku qoran tahay kadibna uninstall ayaad leedahay kuma soo geli karo markaas kadib spy app waxaa loo yaqaan waadna ka badbaadaysaa halkaas waxaa ku dhan dhammaan casharkeenna mahadsanidin waxaan ka hadli doonaa casharka xiga WhatsApp